Bulshoy hoy bulshoy hagarli wadana igasho dadkiina huro waxaad haysaan waxaad haysaan ergabo huro waxaad haysaan dadkiina huro waxaad haysaan bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhammaan baakhiyaarta wada nagala xidhiidhay meel kastoo daafa dunida ka joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oon kusoo qaadan doono munaasabad ballaadhan oo lagu daaqaadayay bilaabidda jidka ballaadhan ee isku xidha gobolada Sanaag iyo weliba Togdheer. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo hore wadadaasi u dhagax dhigay ayaa maanta sheegay in wadadaasi si rasmi ah loo bilaabi doono. munaasabad ballaadhan oo loo qabtay wadadaasi ayaa waxaa ka qayb galay oo madaxweynaha Soomaaliland kala qayb galay xubno ka tirsan wafdigii ballaadhna ee uu hogaaminayay maamulka gobolka Sanaag, Salaadiin, waxgarad, cuqaal iyo weliba madax kala duwan oo ka tirsan dowladda Soomaaliland. munaasabadaasi oo ahayd mid ballaadhan ayaa sidoo kale waxaa kala qayb galay madaxweynaha iyo wafdigiisa shacabka ku dhaqan gobolka Sanaag oo ka kala yimi jiidaha kala duwan ee gobolkaasi hoos yimaada, kuwaasoo madaxweynaha Soomaaliland kusoo dhaweynayay waqtiga uu yimi madasha lagaga dhawaaqayay bilaabidda wadadaasi. calanka Soomaaliland, caleemo qoyan iyo weliba halkudhigyo u gaara madaxweynaha oo ay ku hambalyeynayeen bilaabidda wadadaasi. haddaba barnaamijkan ayaanu ku eegi doonaa arrimahaasi. madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminayay markii ay soo gaadheen halka laga bilaabayo dhismaha wadadaasi ayaa waxa uu salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka ee Soomaaliland. وعصراتنا وديارة عطب كاترسن عيدك كركة جمهورية الصوماليلاند وكوكوسونا وين هي قبل كسراك بدنا ملح ويني كوسونا واو يا مايركا دقمة عيرك أبو ماير إسماعيل حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت ومال وين ومال تاريخية waxaanu mahad naqaynaa ilaah weyn waaxida ee inoo suura galiyay inaan isugu nimaadno goobtan mar labaadka. waxaanu mahad naqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo suura galiyay maanta ceergaabo oo samaysnayd 87 sano oo ku jirtay meel qafilan oo aan wada lahayn. ilaaha ku ilhaamiyay inuu u tacab galo juhdigiisa ku keenay inuu wadadii ceergaabo dhiso. ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. 1926 ayaa la bilaabay magaaladan. 87 sano ayay lahayd khayr waajib khayrkii maanta u noqday Soomaaliland. waa maalintaynu ilaahay ka baryaynay oo aynu sugaynay oo ilaahay ku ilhaamiyay madaxweynaheena Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. shacabkii maxaa dhahay? waxaynu ilaahay u baryaynaa inuu cimrigiisa dheereeyo, wadada uu bilaabayna inuu dhammaystiro ayaynu ilaahay ka baryaynaa. haddaynu nahay reer ceergaabo wixii innagayna saaran oo xil ah, xoolo, xoog, lacag, nin walowba diyaargarow. waxaynoo hadhay ma jiraan, ciid uduglaadh ma jiro. ninkii halkaa ka soo bixi waayaa reer Sanaag maaha, reer ceergaabo maaha. wasalaamu calaykum. degmada ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur aad ayuu mahadsanyahay. iminkana qorraxda oo kulul waxaan jecelahay iyo milixda inaynu hadallada koobkoobno waa hambaliyo un. waxaan iminkana u yeedhayaa barasaabka gobolka Sanaag Axmed geelle daar. allahu akbar.
wasiirada tirada badan ee kula socda waxaan idinku soo dhaweynayaa gobolka Sanaag ma aha markii uu horeysay ee idinku soo dhaweyno waxaanu soo dhaweynta ka bilownay tuulada Shalcaw ilaa Laas Qoray ilaa halkan maanta aynu joogno xafladda waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweyne inaad ku soo dhawaato gobolka Sanaag oo dhammaantood ku jecel oo dhammaantood ku soo dhaweynaya dhammaanna ku ducaynaya sababta aad u samaysay eed u bareedhay in dariiqii Ceergaabo iyo Burco loo dhiso waxaan kuga dhammaantood kuga hambalyeynayaan farxaddiina way ka badatay shaashadaha telefishinada waa laga daawanayay in qalabkii soo gaadhay waxaan u malaynayaa madaxweyne dee waynu gacanadkaano nimankii mucaaradkii waxay ku hadlaa boomadeynaa beley waxay ku hadlaaba ma jirto sababtoo ah meelay dhaliil ka sheegaan maanta maalkayno gobolka Sanaag madaxweyne waxay u yeelayihiin dhammaantood dadku inay ku hambalyeeyaan warax baa taagan tihiin dhibka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Somaliland Ali Maxamed Waran Cade waxa saaka farxad weyn oo ah inuu madaxweynuhu idinkala soo qayb galo hawshii ballaadhnayd ee taariikhi ahayd ee weligeed ka dhacda gobolka Ceerigaabo ama degmada Ceerigaabo ilaa Burco oo ah in muxuu ahaayay la sameeyo maanta uu madaxweynuhu dhagax dhigo iyadoo loo diyaariyey dhammaan qalabkii waddadaa samayn lahaa oo asaakana aragteen horena uga daawateen mashaariicdii iyo muxuu ahaayay telefishinada mudane madaxweyne waxa xaqiiqo ah oo aan saaka la dafiri karin waqcadan ballaadhan ama arrintan ballaadhan ee saaka aynu ka bilaabayno Ceerigaabo inay tahay arrin taariikhi ah oo ku qormi doonta taariikhda noloshaada haddii la yiraahdo waddada Ceerigaabo waxa ballan qaaday dawladihii Ingiriiska waxa ballan qaaday kuwii Soomaalida waxa kale oo mudane madaxweyne meesha ku jirta gobolka Sanaag wuxuu ahaa ilaa Ingiriiskii gobol muxuu ahaa ka takooran ama ka fog Soomaaliland inteeda kale waxaad madaxweyne maanta ku guulaysatay in ay noqoto maalintii u horeysay ee dhinaca dhaqaale iyo dhinaca horumar labadaba ay ku xidhmi lahaa gobolka Sanaag waddanka intiisa kale oo markii hore runtii waddo qaloocan iyo wadalaani haysay mudane madaxweyne waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinaynaa hawsha qiimaha leh ee aad maanta ka qabatay gobolka Somaliland ragii milkaha iyo maamuuska lahaa madax iyo mujabo waa la joogaa hadalka la soo ururiyo iminkana waxaan u dhiibayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Ismaan Cabdullaahi Saxardiin waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud aadan Masiilaanyo marwada koowaad ee qaranka jamhuuriyadda Somaliland amra waris waxaan u mahadnaqayaa waftiga sharafta leh ee madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu qaatay oo ah sidii waddada Ceerigaabo ay u dhismi lahayd isagoo jamhuuriyadda Somaliland oo dhan la kaashanaya waxa la yiri lacagtii baa la cunay oo lagu kaambeyn gareeyay waxa la yiri kaambeyn baa lagu galay lacagtii waxa la yiri dhismi mayso qalab la soo iibinaya ma jirto maanta aan shilinka laga saarin ilaa Yurub ilaa Somaliland oo dhan aan meel walba u marnay دولار waliba iyo shilin waliba wuxuu gelayaa wadada waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland aan leeyahay ilaahay cibrigiisa ha garaajo ilaahay ha ku simo maalinta oo xadhiga oo furi lahaa dhamaanteen bay ilaahay aan ugu simo aamin waa la kooban yahay waqtiguna waa kooban yahay ciidadna waa la fadhiyaa mudane madaxweyne dadkii reer Ceerigaabo ama reer Sanaag dhamaantood waxaad hanatay qalbigoodii saqiirkoodii iyo kabiirkoodii mutacallimkoodii iyo bayc mushtarigoodii dhamaantood waxa maanta inoo muuqatay siday u soo baxayeen inaanay ahayn sid la soo abaabulay ee dadku qalbiga ay ka soo dhaqaaqeen waxaad madaxweyne ku hanatay
qalbigooda aad ku hanatay baahidoodii ugu weynayd baad ka jawaabtay waxaad ugaga jawaabtay iyadoo dhaqaalaha waddanka aad madaxweynaha u tahay la ogyahay ayaad si calool aday ku jiro geesnimo ku jirto u qaaday inaad go'aan qaadato ilaahayna kula garab galo maantaan bilaabayno annaguna waxaannu ka soconnaa reer boorama haddaan nahay ceerigaabo abaal bay nagu leedahay waxaan isku dayaynaa inaan gudno reer ceerigaabo waxaa la yidhi taws ninlaa u galgasho tolna wuu irkiyaa waxaan jeebka ku haynaan soo saaraynaa idinna waxa macaldhiigiinna ku jira soo saara dariiqana waan dhisanaynaa waan dhammaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxa dhaqameedka waxaan u yeerayaa garaad cabdilaahi oo ka mid ah garaadada waaweyn ee gobolka sanaag على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحوينه waxaanu ku leenahay adiga iyo waftiga wasiirada iyo xildhibaano iyo wufuudda kale ee salaadiinta iyo dhammaan cidda kula socotaba soo dhowaada gobolka Sanaag magaalada Ceerigaabo waxaanu ku leenahay si fiican ugu soo dhowaada waad aragtaan dhammaan in dadkii isugu soo baxeen halkaas dhalinyaro waayeel arday haween cuqaal salaadiin iyadoo aan cidina u kala maqleen waxaanu leenahay gacmo furan iyo baanu soo dhowaada ayaanu idin leenahay marka labaad waxaanu leenahay waddadan Ceerigaabo ee maanta dhagax dhigeeda aad u socotid haddaanu nahay reer Ceerigaabo diyaar baanu u nahay inaannu la qaybsanno ama aanu hormuud ka noqonno wax kasta oo maaragtay ku baxaya naf iyo maalba inaannu dul dhigno oo ay maaragtay sida gobollada kale ee dalka ay sidaasoo kale noqoto mar labaad iyo mar saddexaadba qorraxda ayaa kulul waxaannu leenahay madaxweyne soo dhowow oo soo dhowaada oo kaalin mugle ka qaatay waddadan oo ku suntan oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku xiga waa bahda waxbarashada guud ahaan meelay ka joogto markaa hambaliyo ayuu leeyahay maayirka iyo madaxda munaasabadan ka soo qayb gashaba saxabka loo tumo wasaaradda waxbarashada waxaan imkana u yeedhayaa xildhibaan ka mid ah xildhibaan bulqaas baan u yeedhayaa waxaan ka salaamayaa madaxweynaha iyo waftiga culus ee uu hogaaminaya wasiiradu ka mid yihiin xildhibaanadu ka mid yihiin iyo matasharafta kale bacadka taagan allahumma salli ala maxamed iyo saxaafadoo dhan waxaan hambaliyaynayaa waad u hambaliyaynayaa weliba maanta oo ay tahay maalin taariikhiya xildhibaanadii gobolka Sanaag laga soo doortay inaan goobjoog ugu ahaano in la bilaabay waddadii Ceerigaabo lagu dhici waayey kumaanku sanado oo ay maanta kow tahay maaha dhagax dhig waa bilow waxaan kaloo hambaliyaynayaa madaxweynaha ilaa iyo from Hargeysa to Boorama ilaa Seyl ilaa lagu hayo ilaa Allah sqoy ka soo hilaacay aad baan hambaliyaynayaa runtii way badayin cidii laga tago harraali garoodo maanta farxad weyn bay u tahay guud ahaanba dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mudane madaxweyne ee wasiirada dawladda ka socda dhammaantoodba marwada madaxweynaha madaxda inuu halkan nala joogo madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland ay soo dhaweynaa marka hore marka labaad haddaanu nahay dadweynaha Ceerigaabo degan ee oon badan u qabay inay helaan waddada isku xidha Ceerigaabo iyo Burco annaguna waxaan leenahay maanta waan muujinaynaa raqbadayadii waddada diyaar bay naga tahay wixii aanu ugu deeqaynay dhismaha waddada diyaar bay naga tahay waxaan maanta halkan shahaado doonaynaa inaan ku guddoonsiino haddaan nahay guddigii waddada qaadhaanka u ururinaysay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee sida geesinimada leh ugu dhawaaqay in la furo dhismaha waddadii Ceerigaabo iyo Burco isku xidhaysay taariikhdu qarin mayso ilaahayna qarin maayo taariikhdu qarin mayso ilaahayna qarin maayo qabyatira dariiqeena qabyatira hadday tahay raadiyo Hargeysa iyo hadday tahay TV-gaba kaalin mugle ka qaatay waddadan heeso iyo barnaamijyo u sameeyay waxaan la ilaawi karin TV-ga kale ee caalamiga ah
home cable TV waxaan kaloo iyagana la ilaawi karin dhammaan bahda saxaafadda Soomaaliland meel kasta ay joogto oo iyaguna isbarbar taagay wadadaas siday qafilka reer Sanaag ay ula mid noqon lahaayeen gobolada kale taas oo run ahaantii aanu aad jaaliyadaha dibadda ayaa iyaguna jawaab reer Sanaag aanu madaxweynaha marka laga reebo boorarka aanu ku xardhi doonno wadada waxa kamid ah hay'ad waliba iyo wasaarad waliba iyo qurba joog waliba iyo degmo waliba iyo tuulo waliba iyo shakhsi waliba madaxweynaha ayay boorarkooda sidaa uga dambayn doonaan hormoodkana waxa ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxa kaalinta labaad ku xiga wasaaradda waxbarashada wasaaradda warfaafinta iyo ciidamada iyo ababaay looba galaarin dadkeena maanta halka isugu yimi waxaan horta marka ugu horreyn salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta tallaabooyin waaweyn oo taariikhiya qaaday maanta haddaynu nahay reer Sanaag iyo reer Somalilandba waxaynu joognaa maalin taariikhiya weeye ardayda maanta joogta waxay odhan doonaan waxaan goobjoog ka ahaa maalintii wadada laamiga Cerigaba iyo Burco la furayay maanta xildhibaanada iyo madaxda joogta waxay ku faani doonaan inay goobjoog ka ahaayeen wadada maanta isku xidhaysa Cerigaba iyo Burco sharaftaas waynu wada leenahay laakiin waxa si gaar ah ugu suntan taariikhda waxa si gaar ah ugu suntan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxa kaloo muhiim maanta in la soo hadal qaado ay tahay waa markii ugu horeysay ee madaxweynaha Soomaaliland ilaa madaxweynaha Soomaaliya uu soo maray wadada u dhaxaysa من لوي عدو سيلا إلى يلاسقري تاريخ ويواليا waxay noqonaysaa inuu ku suntay yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxa weeye maanta waxaan halka ka cadeynayaa in madaxdii Soomaaliland oo madaxweynuhu hogaaminayo wasaaradii madaxdii kale inay maanta soo mareen goboladii dayacnaa ee ahaa xeebaha inkastoo hantida la hayaa yar tahay waxaan isleeyahay madaxweynuhu iyo madaxdu way arkeen maanta dayaca jira anigoo ku hadlaya magaca xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliya ka soo baxay gobolka Sanaag anigoo ka mid ah gudida wadooyinka waxaan ka aad iyo aad u hambalyeynaya uguna taageeraya uguna aan leeyahay war lacagta aanu rino maanta wadada la furayo iyo xeebta la soo maray labadaba assalaamu calaykum waraxmatullah marwada wasiirada golaha deegaanka dadweynaha tirada badan ee maanta halkan isugu yimi saxaafadda waliba qolada waxbarashada oo meel walba naga hor imaanaysay samsa waxay ku ammaanayd sanadka ciyaalkeedu meel walba ay naga hor yimaadeen samsa iskuulada inta noo hadhayna wad noo dhis wad mahadsantahay haddaanu gobolkeena hay abaad badan baan kugu haynay waxaan halkan maanta ma hadli karayo farxadayda aniga riyadayadii muddada dheer soconaysay baa maanta noo rumowday cid rumaysan karaysa in qalabkii idin hor yaalla wuu yar yahay waxa kaloo iyana farxad ahayd markii u horeysay gobolka iyagu inuu isku xidhmay hore isuguma xidhnayn maantaanu isku xidhnay madaxweynaha ku dhiiraday inuu intuu ka soo baxo saylac ku tago laasqoray cagihiisa isagoo soconaya ilaahay baan u maleeyaa ka jaasa gelin kara cid inteena kale waxba kama qaban ilaahay baynu baryaynaa in cimrigiisa u dheereeyo caafimaad badan siiyo ilaahay baanu ka baryaynaa inaad ku suntantay madaxweynihii horumarka dalka madaxweynayaashiina soo maray midba waxba inoo qabtay laakiin kan waa kii horumarinta dalka kaasaynu u baahannahay oo dalku noqonaynaa dadweynihii lacagta bixiyey kuwii ballan qaaday dalkii dabadaba waxaanu ilaahay ka baryay waxaanu u sheegaynaa in qalabkii la bilowday shaqadeedu way bilaabantay taariikhda qori doonta annaguna waxaanu diyaar u nahay habeen iyo maalin inaan ka seexo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marwadiisa golaha wasiirada xildhibaanada iyo wafdiga aadka u ballaaran ka midka ahaa runtii aanu ku soo marnay historical trip baanu ku soo marnay muddo dheer iyo waddan aad iyo aad runtii aanay taariikhdu aan xusi doono inta noolay waxaan halkan kelmad ka odhanayaa
qurba joogii anigoo ka wakiila una matalaya wafdiga la socoshadiisa waxaan leeyahay in badan baynu lahayn lacag un bayna laga ururiyaa wax badan kama aragno waxaanu maanta goobjoog ka ahay oo si practical ah idinkuna u arkaysaan waddadii Ceerigaabo ee aad iyo aadka u dheeray in maanta qalabkeedii xaggii xukuumadda iyo xaggii dadweynuhuba ay diyaar u yihiin waxaan halkan idin marinayaa inaynu wanbawnka wax taraya horena wax baynu u soo caawinay waddada Ceerigaabo waxay isku xidhi doontaa dhammaan Somaliland waxaana noqon waa halbawlihii Somaliland waxaan idinku boorinayaa oo idinka marxaatiya inaad ku soo dhiirataan wixii aad tari kartaan haddaad tihiin qolada Maraykanka haddaad tihiin qolada UK iyo haddaad tihiin qolada Yuruba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مدحوينها جمهورية الصومال أحمد محمد محمود سيلايو مروده مدحوينها وسيرده علماء ودينك عيد مضى ددوينها رير سناق رير Ceerigaabo ardayda عيد iyo dadweynaha dabada nagaga maqan ee reer Soomaaliland oo blabda waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta waxay inoo tahay taariikhda markaa dib u baadhaan koob iyo 30 sanadood horteed baa madaxweynuhu isagoo Minister of Planning ah oo wadadaas niyada ku qabtay inta Ceerigaabo la sameeyo way suuroobi weydayo dawladdii Maxamed Siyaad Barre u diiday oo boosaas u leexisay waa taariikh qorta Ahmed Maxamed Maxamuud wuxuu dabaadna yiri ilaahayow iga aqbal oo mar gacanta ii gali xukun ilaahay wuu ka aqbalay Ahmed ilaahay wuu ka aqbalay waa ka maanta madaxweynaheeni ah 16 September ee sanadkii hore yuu inaaf madooba laga xadhigay waxaanu ku nidhi oo aanu ilaahay uga barinay inuu maalinta xadhigana ka jaro maanta wataas uu hirowday wakaana cagafyadii la diray aan ninna la weydiinaynin ee uu diray oo ay joogaan aan Hargeysa ka soo kaxaynay ilaa Jabuuti waayahay ogaada qoladiina macaaridka ahayd geeday ku xoqata hawayde maantana maxay idinku hadli wadadii waa ka dhaga xadhigay cagafyadiina way joogan isaguna waa madaxweyne shanta dabana waa dooranayna assalaamu calaykum محمد نور عالم بقر محمد نور عالم بقر قطاده سودو بقر سوكوب كلمة أحمد محمود سيلايو مروده قرنكا دمان وسيرده xildhibaanada madaxda ciidanka kala duwan marti sharafta dhamaan assalaamu calaykum warahmatullaahi bimaanta farxad weyn noogu tahay in aan maanta halka ku sugnaano iyadoo madaxweynaha qaranka fadhiyo oo wadadii noo dhagax dhigayo waxaan leeyahay madaxweyne aad iyo aad baad ku mahadsan tahay anigoo ku hadlaya afka reer Sanaag ee shacabka gaar ahaan degmada Ceerigaabo waa ku soo dhaweynaynaa waqtigaaga qaaliga ah ee aadna siisay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waxaan xusuusanaa safarkii ka horeeyay sanadkii hore madaxweynuhu markuu Ceerigaabo yimi waxay codsadeen wadada bay ka codsadeen madaxweynaha wuu ballan qaaday maantana wuu rumeeyay dhagaxii u dhigayaa sanad baa u dhixeeyay maanta la bilaabayaa madaxweyne sanad gudihii shacabkiisa hadalkoodii uu ballan qaaday u rumeeya Ahmed Maxamuud Maxamed Siilaayo baa la hayaa qofkii ay riya la ahayd qofkay bay la ahayd qofkay kaambeyn la ahayd waa maanta aragtaan way ruu kaga rumeeyay ilaahay waxaan ka baryayaa sidii dadka hore sheegay inuu xariga ka gooyo dadka reer Sanaag iyo dadka reer Soomaaliland ee kale walaalaha iyaga waxaanu ka codsanaynaa inay gacan ka geystaan war miyaynaan gacan ka geysanin reer Sanaagow miyaynaan lacagta bixinayn waxaanu ku abaalgudaynaa oo maanta ku talinayaa in wadada loo bixiyo madaxweynaheena Ahmed Maxamed Siilaayo inaynu wadada u bixino ayaan ku talinayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
ورحمة الله وبركاته أنا ورد سأندوني يوم يدعينا وحربي دad kooban inay hadlaan laakiin mar haday furateen kalmadayda waa oranaya waxaan doonayaa tadamaanteen inaynu madaxweynaha ilaahay maanta bacadka aynu joogno inuu wadada furo ilaahay u weydiino cimri iyo caafimaad ilaahay ku gaarsiiyo amiin 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 aynu horta ilaahay u barino inuu wadada ayna la furo ilaahay caafimaadka uu maanta inagula joogo ilaahay u dheereeyo oo xooga u kordhiyo oo cimriga u kordhiyo amiin inta dabadeed waxa weeyaan maanta waxa weeyaan anigu halkan kelmadda waxaan ka leeyahay qurba joogtii ku ballan qaaday lacagta wadada iyo degmooyinkii ceergaabo garadag celaf weyn maanta waxaan leeyahay wadadii way bilaabantay dawladuna inteedii way qabatay waa taasoo cagafti wayna dul taagan tahay waxaan rabaa maanta inay ku baraarugaan oo lacagtii ururintii ku baraarujiyaan waayo waxa weeyaan doubt baa galay wadadii goormay bilaabaysaabana lagu wareeriyey waxa leeyahay wadadii waa bilaabantay lacagtii waxaanu filaynaa inay lacagtii soo dhacdo madaxweynaha waxa kale aan ku hambalyeynaya guusha uu ka soo hooyay laas qoray aad baan kuugu hambalyeynaya madaxweyne adiga iyo wafdigaaga dhammaan dadka reer Carigaabo ee halkan isugu yimi madaxweynaha soo dhaweyntiisa iyo madaxweynaha iyo mas'uuliyiintiisa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaan kadib aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadkii reer Carigaabo ee madaxweynaha iyo waftigiisa soo dhaweeyay iyo siday u muujiyeen dareenkooda u muujiyeen wadada Carigaabo ay u muujiyeen siday ula garab taagan yihiin siday u muujiyeen supportka iyo taageerada madaxweynaha ay u hayaan siday u muujiyeen dal jacaylka iyo wadaniyada ka muuqata waxaan leeyahay people of Carigaabo have spoken way muujiyeen dareenkoodii aadna u mahadsan yihiin inta kadib wadadii Carigaabo sidii la sheegay ee inta badan laga warramay waa la bilaabaya maanta madaxweynuhu wuxuu yimi bilowgii dhaqaajintii wadada Carigaabo bilowgeedu waxay markii hore la dhagax dhigay madaxweynuhu in afmadoobe dad badan baa lahaa la samayn maayo oo waa been waxaanu samaynay oo madaxweynuhu runtii sameeyay in la sameeyo budgetkii oo golaha u gudbiyay baarlamaanka budgetkii oo loo saaray xoolaha iyo gaadiidka way suurto gashay waxa sidoo kale madaxweynuhu dalbay qalabkiina waa diyaar oo waa ka maanta yaala meel walba goob walba yaala goobi loogu talagalay dhaqaalihii loogu talagalay qurba jooga guddida oo baxday wax badanna way ballan qaadeen ilaa 7 milyan oo dollar bay ballan qaadeen waxa gacanteeda soo gaaray ilaa hadda 1 milyan wixii ahaa contribution haday yihiin kii dawladda haday kii qurba joogaba milyan iyo boqol baa soo gaaray waxaan mahad gaara halkan uga jeedinaya wasaaradda waxbarashada oo kaalin mugla ka qaadatay haday ahayd soo dhaweynta yaa haday ahayd lacagta ay bixiyeen 120,000 oo dollar ay leedahay waxbarashadu ayaana soo gaaray aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa qurba joogii in badan iyaga ka soo dheereeyay nusa saaci caruurta ayaa qurba joogii maalin walba nooran jiray maxaa ku qabanaysaa ayaa waa cunaysaa ee nagu hadidi jiray ka soo dheereeyay waxaan leenahay walaal wali waa loo baahan yahay dalkaaga wax gasho waxaan leenahay wadada Carigaabo shalayta hadda u arkayseen waxaan suurtagal ahayn maanta waa wax suurtagal oo la sameeyo caadadeed bay tahay leaderku inuu u horseedo bulshada waxay u arkayaan inay suurtagal ahayn sida laga wariyo Mandela markii uu ku jiray halganka wuxuu yiri it is always impossible until it is done hadiya jeeraale waa waxaan macquul ahayn ilaa la qabto waa halabuurka madaxweynaha ayay ku timi wadadu iyadoo la arkayn oo dadku aanay dareen ka qabin ayuu galiyay campaignkiisii markuu doorashada u taagnaa iyadoo loo doortay ayuu guddi u saaray oo dhagax dhigay oo lacagteedina diyaariyay waxa leenahay insha Allah taala waxa arki doontaan wadadoo la furay oo la dul marayo ayaa bari noqon doonta insha Allah taala taariikhdana u gali doonta madaxweynaha haddana waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha dowladda Soomaaliland وفرحة ويقراني أمانتي هالك سوق يقول حفلة أينو مانت وددي عرقابو أينو أوشي دي كبلاب أينو ودرا وأينو حق أينو كسو يقولون أينو وقين ودرا ودالك سيسوكو حريسو ومدى سيسوكو كيريسو waxay dalkii dadka ku soo kordhinayso qiimaha u leenahay ay wadaagsoonay waxa maanta suuqa keenana ah marka waxa uu leenahay wadada aad baan ugu dadaalaysan ballan qaadnay sidii la sheegay qalabkeedii waa la keenay wixii loo baahnaa waa la keenay wixii loo baahday kalena diyaar baa mar walba la leeyahay
sidii wadanaas u hirgeli lahayd waxa la sidii wax kasta aynu kacday nagu soo toogi lahayd dalkeena dadkeenu isku xidhnaan lahaa ummadda horumarkiisa iyo isku xidhnaantiisa iyo midnimadiisa iyo horumarkiisa aynu ugu dadaalaynu samayn lahayd marka soo dhaweynta halkan lagu soo dhaweeyay dadweynaha reer Cergaabo nagu soo dhaweeyeen iyo mas'uuliyiintiisa madaxdiisuna aad baan uga mahad celinaa waxaan soognahay hawsha oo barbarka ka baxdiya waa bakayla qaleen marka hawsha aan isku ogaano aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh taariikhdu qarin mayso ilaahayna qadin maayo taariikhdu qarin mayso ilaahayna qadin maayo qabyatira dariiqeena qabyatira dariiqeena taariikhdu qarin mayso ilaahayna qadin maayo